Soomaaliya Xasan Sheekh mudane Xasan Sheekh madaxweynaha inay baxaaraan ka tahay diiniyan inuu waxa qabto ma aragta doorasho oo hadduu doorasho qabto ama xilka asaga uu ka dago dho aniga was casile labadaasba inuu ma aragtay ilaahay caradiisa ma aragto oo ku mutahay okay maadaama doorashada xaaraan ay ka tahay dhehaysid de maxaa u sababeynay waxaan u sababeynaa caliyow horta waxa adduunka dada lagaga daydaa marka oo adiga aad ahayn qof horumarsan adduunka lagaga daydaa maxaa la qaabkay u nool yihiin hadda dadka naga horumarsan qaabkay u nool yihiin anagoona raacaynin dhaqamadooda xun waxaan raaci karnaa dhaqamadooda fiican oo ay sharciyeystaan wadanka Ukraine madaxweynihiisa wuxuu laaday oo ma aragtay oo istaajiyay waa asoo gaal ah wuxuu istaajiyay doorashada asoo u sababeeyay wadankiisa inuu waxa ku jiro martial law oo waxa ku jiro ma aragtay international security oo national security-giisa inuu qalqal ku jiro soo weeraray laakiin waxa ka dhaxgalay Ukraine de wadan dagaal ku socdo waaye anigana dagaal lagu socday waa ku soo wada waxaan rabaa inaan isku qaadaro iyaga dhan ninkan leeyahay ma aragtay Zelensky oo Ukraine ma aragtay hogaamiyo wuu ku darsaday wuxuu yiri ma aragtay doorasho ma dhacayso waxa ku soo haray adduunkana waa aqbalsan qofka qaylihiisa oo dhays dictator waa mala World War II markuu dhacay Ingiriiska waxay ku darsadeen ma aragtay hogaanka baxayay markaas waxay ku darsadeen 8 sano sababtoo lama hubin nolosha iyo ma aragtay qaabka sidee qarabto ilaa meel ay u dhacayso waxa la yiri ma aragtay inay hogaanka sii wadaan sidoo kale Mareykanka waa ku darsadeen waxay joojiyeen doorashada mar oo ma aragtay iyagana national security-good oo qalqal galay wadamo badan jira sida Kooriyaanka iyo waxyaabahaas oo dhan way ku wada darsadeen marka Soomaaliya qaabkay dadkan ugu darsadeen hal qodob ay ahayd macnaha hal qodob oo international community-ga oo aqbalsan yahay haysatay saasay ma aragtay ay u diideen in doorasho qabtaan adduunka mamnuuc waa in doorasho qaweys ilaa wadanka waxa adduunka dhan waxa markaas uu ka hadla waxa la dictator waa asa waxa soo taageera ma aragtay mucaaradka ma kan ma la sameeyay saas ma sameeyay waxay taageerayaan kan madaxweynihii saas sameeyay taageeraya sababtoo uu ku saxan yahay sifo sharci oo hasta Xasan Sheekh waxa isugu darsan marka kuwa meesha hal xab ma aragtay kaliya ee dhahay Xasan Sheekh waxa isugu darsan argagixisadii dagaal ku hayso maamul goboleedka kala firdhisan security-ga wadankii waxa ma aragtay way kala go'ir wadanka dhan maxaa la ma aragtay Israa'iil waxay aqoonsatay maxaa la Soomaaliya waa waxyaabo oo national security iska dhaaf oo kaliya oo Soomaaliya East Africa dhan ma aragtay dhibaato u keeni kara macnaha nafta oo Xasan Sheekh ma badbaadiyo ay kaliya dadkan Soomaaliya joogo waa East Africa dhan halis ku tahay in ma aragtay asaas loo kala qof Soomaaliya Israa'iil faraha soo gasho meesha soo dhaxgasho meesha Israa'iil soo gashan waa dareem kana blackmailing-kii lagu haayay Mareykanka aanu soo guuray already hadda Imaaraadka waa waxay sheegtay waa aragto waxay taageertaa ma aragtay maamulayaasha qaarkood inay farka hayso madaxda qaarkood inay wax ka hayso fadeexad ma arag soo bandhigayaan marka waxa soo dhan markii la isku daro national security-ga meesha ugu darnaay halistiisa mara intaasoo milyan oo qofood oo Soomaaliya nafsadooda halis ku jirta waxaan dhihi lahaa marka Xasan Sheekh waa inuu joogaa waajib Ilaahay saaran waa inuu joogo macna uusan doorasho qabanin ilaa waxaan xal looga helay ilaa security-ga iyo ma aragtay amniga iyo ma aragtay wada shaqeynta iyo midnimada Soomaaliyeed ee kasoo naqayso Xasan Sheekh inuu meesha taagnaado waa maxaa ku soo haray ma dhahay Xasan Sheekh kaliya laakiin inuu dani xataa joogo waa maamul goboleedyada qoor joogo waa inuu ma aragtay Cabdiraxmaan maxaa la ma aragtay madaxweynaha oo Jubbaland inuu joogo waa madaxweynaha Soomaaliya xataa inuu joogo waa ma tagi karaan ilaa hal wada looga saaray kullu xaraanay ku tahay iyaga dhan xaaraanay ka tahay macnaha waajib saaran waay inay shaqadooda sii wataan administration-ka joogaan laakiin wadadii ummadda u furaan oo ma aragtay ku hormar lahaayeen waxaana lagu keeni karaa oo tala lagu keeni karaa oo aan aniga xataa arkay